أما بعد وحوي ومناسبة قالية ومالنتي لبا حزبي وطني بركيسان أو قبطو مناسبة ديسي كنا قبطو دقمدة سيرة قبولك سلل عاصمة الله وحان إليهاي هذه أغانيكم هاتنا قينا وان سود وينينا سلا نو سود وينين أيانا نبويني سود وينين وحان إليهاي أوشبضا أيام ساكا بطلي مركان مناسبة يدي وقور ريسي حريرة دلتقني دادك واللو عقل تقليني واللو هنجبي lacag baa la bixinayay habeenkii $5 iyo $10 iyo kolkol bay $100 dadka siinayay waxay oranayeen waxba ma hayne dad noo soo baxee noo soo baxa ma dawlad iyadii leh ii soo baxoy taageer may jirtaa way dhacday waanu faataxaynaynaa kulmiye xataa faataxa حاضر هذه الفاتحة ويقدم معطيه حاضر هذه السماطوها لهنا السماطوها لهنا وحاني نيشيغيا ذاتك شقالها لو هنجبيو لو هنجبي مايو كرشدوده قلبيقوه هو وطني برتود ووطني حتى الله حقوق قفك ما قلبك الله حدي ما فرق الله حدي يا وحبني جلكم بكتر سنتا مركا وحاني ليهاي وحاد عدكيستا دولدو مركا يقرقر ايان سيدي قدامي سندة بيت وكيو نجي أقل يوق سنتقد يعني سكوك راعي نابيلي لكن وحبا مقاضيان وحاني نيشيغي بيش هو يهرادان تاي واناقي هرادناي من هنا إلى إيا بدن من زيلة إلى بدن مالنتي هيستا نسميه وبشهد هيستا وكاتايا ووطني مالنتي لي حال الربع حال الربع معجزة وبوين مركو يمدي وطني جي بركايسنا أيو حالي روب كنا داي أولياء الله نلجرتا شيخ إبراهيم سيلح بان نلجرا شيخ عامر بان نلجرا يا علمادي شيخ إسحاق يا شيخ عيسى يا شيخ سمرون يا وطني يا شيخ جبرت انت ما وضع مرقاعد وحكا قابيسا لكن قلبي قاد كايا طبعا عشو وحكا يرباها دي كوشنا ينقالي دقالها بطا كتيرا ايان كفايدي سنين عيدين لو الذهب وحيبا ينقا وضا قضيين الله قضية وضب وريرسان أنا نيشيغيا هديني كنغا صور جيدي باشا قبصبو جيلال بالي نقو وضا قولي هيار بادو ايسي هيار ما والنوع قدافيو قاي حتى تاريخ دا تبو راعبو يا يكيم حيا هيدي العراق وايا كو عيدا يسانيا وايقا انت كلو حانو تيغيا نيكا كاستم كايستا الشوبان كلها داد نماذا هذا اسكو احترام بان كلها مالين كاستا تقوم يصدر اسلامتا عافيمات كتبتا اسلامتا وركالي جبوتي لغير صورداليني ادكا حشون لا داي نفتا هذا وحشون سيربان نوع عليك مجيريسو كوبيا صدر كاسي وطاني مالين تاوي مادوك
كوبي الصدن إسكداي الرورتان وحني قوة قرينايو دول كودن بابر واقو فلاور لكن هدي كل مية وقفصدو كوبي الصدن باد كعبان يسيني جيلالك أدوك وقرنو أيا الله ينقو قري كتشبه والدولة ديكتاتورة عقل جيتنا حاجات سنة قبيلات فربضنا كجر وطني والنظيف وتضرب إن يدل كان كتليان من بدن إلى زين. وجهه دلالة. وحني شيء يا إلهي كربكين هكذا أيتاي maalintii labaad ee xisbiga wadani isu soo baxa lagu muujinayo taageerada xisbiga wadani doqoshi waxay noqotay nambarkii labaad ee ku xigay xariira marka waxaan inii rajaynayaa in aad noqotiin tiradiinnu aad bay u badan tahay maalinta doorashada adeer warqadii kaadhkii meel buu igaga lumay maaha maalintaa qaado kaadhka ku rig fartaada ayaa gobonnimo ku haysa fartaada ayaa guusha ku haysa fartaada ayaa guuldarrada ku haysa habiqina way rafanayaan waa waqtigay waalan jireen afrikadu markay wax doonayso xilligii bay ku jiraan haka biqina ilaahay ka baqa ilaah baa ka soxeeya marka fartiinna waxaad siinaysaan waayo yaad siinaysaan guusha yaa leh guuldarrada yaa leh midaysan ee sida quruxda badan ee milgaha leh ee sharafta leh ee raba inay isbedel helaan isbedel khayr qaba degmada Saylac waxay ka mid tahay degmooyinka Soomaaliland kuwa ugu dakhliga badan degmada Saylac waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan degmada Saylac waxay ka mid tahay degmooyinka Soomaaliland horumarkii ay dadkii ku midaysan yihiin ee Soomaaliland oo dhan ay ku midaysan yihiin laakiin nasiib darrada jirta waxa weeyaan xukuumadii Soomaaliland ee siiraayo xukuumadii talada dalka hayso xukuumadda siiraayo markay talada dalka la wareegtay waxaan laga filayn baa dhulka ka dhacay xisbiga kulmiye maalintuu la qabsaday xisbiga kulmiye talada dalka la wareegay waxaa ku soo kordhay gobolka waxaana laga filayn xisbiga kulmiye wuxuu ku sifoobay nin sheegay walaalahayo wuxuu ku sifoobay qabyaalad wuxuu ku sifoobay musuqmaasuq wuxuu ku sifoobay wax qabad la'aan oo degmadu ka tirsanayso wuxuu ku sifoobay inuu dadka reeraha wada degan ee walaalaha isku diro xisbiga kulmiye wuxuu ku sifoobay maanta u dambeysay inuu asagina shaqaalihiisii ololeeyaan oo qasab lagaga dhigo dadkii daacadda u ahaa xisbigana shaqada laga eriyo ama la xidho waxaasoo dhan waan iska arkaynaa inuu dhibaatadaasoo dhan waxaan ognahay halkan maamulka heer gobol hadday tahay madaxda gobolku inay gobolkan ka soo jeedi waxaan ognahay in meel kasta cirka laga keeno dadkan shaqaalaha dadkii deegaanka iyo dadkii magaalada deganaana ay ibnaa camalka yihiin waxaan ognahay in badeena maanta in 8 markab oo shisheeya oo jaarif ku wada oo khayraadkii dalka quranaya inuu badda ku jiro waxaan ognahay in kalluumaysatada maanta ayna waxba ku ahayn baddii xisbiga kulmiye baddii iyo gobolkii khayraadkii badda iyo khayraadkii beriga oo u iibiyey xisbiga kulmiye wuxuu kaloo ku dhaqmay musuqmaasuq hantidii gobolkan lahaa meel kaloo la geeyaa xisbiga kulmiye waxaan arkaynaa oo maanta noocaas
إن وضدي سيل عياش كل سيل لو يعدي الدخل بولا هذا الدخل اللي قبل كسومرية إن بابا صنته والحوش قبل وحنا إن ما تعاطفات وليتو وحنا إن وحبرشة يليتو وحنا إن ماسك بالله هذا قبل السنة وعربنا هذا وحنا والله يرجع حسننا إن سبت الخير قبل الدوات الربطان إن شاء الله قبل كم كنت دعنا هذه ربطان إن سبت الخير قبل وحنا سوينا حسب قاعد وطنية لقوم يدوب سومان هذا لقوم يدوب ونيجا مرتين حسب قال وطني وعوديسان وحنون نيجا عصنا إن حسب قال عدالة تصومنا لا دور دنا أي كميت كتاعي كوب بهوه أي كده موقدان هنا دور عوديسان شو وطني سكموجي صادق ما عرش سكموجي شو محمد علي عبدي سكموجي عندنا هاي حسب قال وطني وأيضا درب كذا تام صابعه ومحاكم هذا عقيم يعودنا مرتان waxaan joognaa waxqadeennii labaad ee xisbiga wadani maanta macnaha waxaan leeyahay hawsha maanta uu kulmiyo kalley kama sheekeynayno in badan baa laga sheekeeyo dhibkeeda iyo waxeedoo dhammaan maqaan waxaan leenahay kulmiyo way dhacday aan jarka ka tuur aan sii tuur waxaan dhacay saaka nin wasiir ka mid ah markay Soomaaliya dawladda kulmiyo halka igu yeeray wuxuu bashiirow madaxaad gidaarka ku dhufan doontaan arrintan uu soo noqon doona cirana waa laga qaadi doonaa ijmaad waxyootaan misafaal baa dhigtay markaasuu yiri maye saasaan ku riyooday dee riyo laguma noolaa inay tani way rawaxday isaga tagnay waxaweye macnaa nin hadduu seexdu soo tooso waa ninkii un kulmey waa ninkii shalay madaxweyne ku-xigeenka ka hadla gaarisa wuxuu yidhi qoladani waa gob sababtoo ah wixii ay lahayd baa ee ka maqnaa bayna sheegan buu yidhi marka sidaasay gob ku noqoto war ma ninka wixiisii maqan yahay baa goba ninka wixiisii maqan yahay ma goba wardeena afar qof baa diiday wiil afarta qof waa kuwii cadaaladda ay waxoodu ka maqnaa kuwii waxoodu ka maqnaa dee diida weeyaan waxa weeye dameerka laba jigjigaan tegay magaalada jigjiga xero waxaa la yidhi dameeraha lagu iibiyo laba dameer baa iskala taagan ciid baa lagu shubaa ciidda lula ee daadiya yaa laga iibsadaa xagga dameeraha kulmiya dadka waxay qaadataa ka aan daadinayna ciidda lagu shubo xasi ujiiraya marka waxaan leenahay wadani ha noolaado dadweynaha reer Saylac ee sida milkaha noo soo dhaweeyay ee isbeddeldoonka isugu yimiday waan idin mahad celinaynaa waanad mahadsantihiin waayahay dawladdan kulmiye dhaxalka aan ka dhaxalnay baan ka sheekaynaynaa waxa weeyaan cadaalad ayay sheegataa cadaalad way kala tagtay waxa shaqayn la digreetadii madaxweynuhu soo saaray ee shaqaaluhu ma ololayn karaan la yidhi waa shaqayn la weli ahaata qofkii kii shaqaalaha ama ha xamaasho ama shaqaalaba ha noqdee kii shaqeeye maxaa koofiyadda wadani qaata ama garanka wadani qaata waa laga ereeyaa shaqadii waxaa leeyahay xisbiga wadani baa taa lagu ereeyaa cadaalad halkaasay ku kala kaga tagtay xisbigii kulmiye waxaan wadnaa waa xisbi cadaalad aan wadnaa waxa weeyaan talabaad dhaqaale waad arkaysin halka uu joogo maalintii aw daahir ayaana ka tegey wuxuu taagnaa 650 kun buu taagnaa $100 maantana milyan iyo 100 buu maraya waxa weeyaan qabyaaladda waad arkaysid maanta maxaa hele daahir ayaana kelmadii uu kaga tegey waxay ahayd waxaan kaaga tegey siiraanyow dad mida iyo maxaa hele iyuu kaga tegayahay maantana maxay socotaa reer baa loo socdaa ilaa hoos ilaa labadii xaafad labadii haweeneys qabay iyo maxaa hele ku kala degan oo midna qabiil tahay
idinku filan reer saylacow lacagta intaa la eega lagu qaadayo kastanka halkaa saylac way go'doonsan tahay saylac waddadii wataa xidhan halkaasaa laga dhisilaaya waad inii muuqataa indhihiinna inigu filan وعويان نبتقلية ما أنت وضبتي المحايا نبتقلية هاي دولة دي دايرة وحالك أنا هو وقتي إن نبتقلية جرين محايا الصومالي لان وحويان وحمايا إن دولة دا جاركينا وحي نلوح ليسيسي وحي هاي لمقف أو إنك الصومالي لان كان يحب حي واقع سوق حياي جبوتي سوق حياي وحويان تريد هدي أي وتريس ومدة محيدة كلمية ما أنت معاه هيدا ومدة كومية صدق $1 مالي والباقي على مقاليو ويقولوا سيين مقالوي كي قبل كان أول أوردن ويقولوا سيين عشور تاديري جاي حرام تلاقي قالا وحويان دتكي ويقولوا سيين دتكي إبريني أوسو حاجة بحيي دتكم معايا كشقيسن لهاين اسكو حيركي معايا معايا ديغانكي معايا جيبوتي يا الله إنكم معايا سومالي لاند قبل كأوضل way kala gooday waxa weeyaan waxaan nii wadnaa markaas halkaas ay taagan tahay maanta haddii uu turayso ummadeeda kama qaadeen afar qof oo isla socdo isku qoysa $120 ka laga qaadeen waayahay kulmiye maxaa lagu dooranayaa soo wadani uma codayno oo farteena kuma ciilbaxan sheega lama yiraahdaa waxaan diyaar u nahay mar walba xisbiga muwaadinka ahaa ee maxay ahayd wadani ayaanu diyaar u nahay isaga garab joognaa isagaan taageeraynaa isagaan codkayga siinaynaa hanaalaada wadani hanaalaada wadani hanaalaada wadani waxaan maanta halkan ugu soo dhaweynaynaa wadani xisbiga yaga annagoo kolka hore ahayn kulmiye markaan wax ka garo inaan ka soo gurnay oo nidhi bal codkiinni haddana maanta halkaad ku dayda haddaan anagu reerta qoshinahay waxaan nahay dad muruqmaale dad dawlad u shaqeeya ma nihin muruqmaalkiina abaara nagu dhacay kuwii ariga lahaa kuwii beeraha lahaa milixdii way naga engegtay cidiba nama timaado cidiba waxba nama siiso cidiba nama soo gurmato annaga wixii annagu waxa weeyaan milixdayadii maalinta noo soo baxaysana milix kaloo jeena laga keenay ayaa la keenay dhulkii maalinta la keenana annaga tayadii maantoo kale waxba wallaahi kama helo way naga engegtay abaar weyn baa haysa baadiyi iyo magaalada wixii jabuuti ay soo caawisa soo dirtana waa la dhaafay halkaa wala mariyaa wala soomaalilama wax ka helaa wala cid kale wax ka helaa annagu haddaan nahay reer maanta wadani unbaa la suuma wax ka sugana iyo ilaahay wadani ha noolaato wadani madaxweynaha cabdiraxmaan ha noolaado madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado inta ag joogta maanta noo timid ha noolaadaan xisbiga wadani ha noolaado waad ogtihiin in xisbiga kulmiya uuna dhalinyarta magaalada toqoshuuna waxba u qaban waxaad ka garanaysiin xisbiga mucaaradka ee wadani inuu wax u qabto dhalinyarta toqoshuba laga garanayaa waxaan u sheegayaa dhalinyarta fursadii u dambaysay haystaan inay codkooda siiyaan xisbiga wadani ballanteenu waa xisbiga wadani waa soo ballanteen xisbiga wadani maa dhalinyarta toqoshu waxuu ka ogyahay xisbiga wadani waxaa la ogaanayaa maalinta codbixinta hadduu la yidhaahdo reer loo yacado ayagoo midaysan u soo baxay xisbiga wadani aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan maanta nii sheegaya oo caddayseen inaad isbeddel diyaar u tihiin inaad soo isbeddel diyaar ma tihiin soo wadani ma taageeraysaan wadani $130 ma jiray haddaa wadani taageertaan kumiya down kumiya ha dhaco waxaan ii sheegayaa kuma yaabay waxaad muujiseen taageero waxaad
taageeraysaan xisbiga wadani ma taageeraysaa Abdiraxmaan Ciro ma taageeraysaa Abdiraxmaan Ciro wadani ha guulaysato sidaan wada ogsoonnahay dalkan wuxuu xisbigeedu ka tegey isagoo dad mida iyo dal mida ah maantana waxay socotaa labadii qof ee isqaba ee labada qabiil kala ah inay isbarteen laba qabiil kala noqdeen baa yaa maanta inay kulmiye noo horseedo qabyaalada waxay noo horseeday waa xisbiga kulmiye ay noo horseeday waxaad ogtihiin in magaalada Lawiyacado ay ahayd magaalo caama oo xuduud ku taala oo shaqaynaysay oo maxay leeyihiin xuduudaha wadannada jaarka cid walba soo baxaysay oo shaqo fiican lahayd maantana waxay socotaa in laba afartii qof ee suuqooysa ee isla socota maxay $120 laga $124 laga qaado islaantii dhaalahayd waxa dhacday inay Itoobiya ka soo wareegto $100 ee laga qaadayo ummadda islaamka ee ummaddeena xaaraanta